kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibadeena qiimaha badanow halkani waa janalka wararka ee Samakaab TV mar walbana waxaan soo gudbinaa wararkii ugu dambeeyay dalka gudihiisa ka dhacaya akhbaraadka kale ka qarsoon taariikhdu waxay ku beegan tahay 22 bisha Oktoobar sanadka 2019 waana talaado qodobada aan sida gaarka ah u eegi doono waxaa kamid ah safiirka Mareykanka ee Kenya waxa uu yiri Muqdisho ayaan tagay kuna cadaadiyay farmaajo inuu ka laabto kiiska badda waa sir uu soo dusiyay safiirka oo ku saabsan muranka badda oo laga cabsi qabo in dawladda federaalka ay wada hadal ka gasho kadib markii dib loo dhigay qarax xoogan oo ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho iyo mas'uuliyiin lagu beegsaday faahfaahin dheer oo ku saabsan ayaan eegi doonaa Axmed Madoobe waxa uu magacaabay labadiisa ku xigeen waxaana ay muujinaysaa in kaligistalis uu ka jiro Jubbaland kadib markii uu qaaday tallaabo wax isbedel ah aysan ka muuqan iyo ahlu sunna wal jamaa oo ku dhawaaqday guddiga farsamada ee maamulka Galmudug dhismihiisa loogu talagalay waxa ay kaga soo horjeedaa guddigii ay dhawaan wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumaddu soo saartay ku soo dhawaada saaxiibayaal qodobadaas oo dhameystiran fadlan daawade haddii aad janaalkeena ku cusub tahana subscribe inoo saaro gambalaalkana taabo si markasta aad u noqoto qofka ugu horeeya ee wararkeena iyo warbixinadeena ay soo gaaraan ugu horeyntiina saaxiibadeena qiimaha badan oo barnaamijkeena waxaanu ku bilaabaynaa safiirka Mareykanka ee Kenya waxa uu yiri Muqdisho ayaan tagay kuna cadaadiyay farmaajo inuu ka laabto kiiska badda waxaa la helayaa sir ka timid dhanka safiirka Mareykanka ee Kenya jooga taas oo laga cabsi qabo in dawladda Soomaaliya ay wada hadal ka gasho muranka badda ee Kenya waxaa soo xoogeysanaya tuunka ku saabsan in dawladda Soomaaliya ay ogaatay isla markaana ay raali ka ahayd in dib loo dhigo kiiska dacwadda badda ee Soomaaliya ee maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ICJ-da kadib markii sir uu shaaca ka qaaday safiirka Mareykanka ee Kenya fadhiya arrimahaasi uu faahfaahin kaga bixiyay safiirka Mareykanka ee Kenya ninka lagu magacaabo Kayne Center oo wareysi siinaya wargeyska Daily Nation ee ka soo baxay Nairobi ayaa shaaca ka qaaday inuu safar ku tagay magaalada Muqdisho kuna cadaadiyay madaxweyne Farmaajo in kiiska lagu xalliyo meel ka baxsan maxkamadda arrintan si degdeg ah waa in loo xalliyo waxaan muddo ka shaqeynaynay in madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne Farmaajo ay isku yimaadaan miiska wada hadalka inay wada fariistaan ayuu safiirku yiri waxaan tagay magaalada Muqdisho si aan wada hadallo ula soo yeesho madaxweynaha Soomaaliya waxaan u sheegay inuu ka laabto kiiska maxkamadda ayuu hadalkiisa sii raaciyay Kayne Center ayaa sheegay inuu Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta u sheegay in caqabada weyn ee haatan labadooda hortaalaba ay tahay in laga adkaado argagixisada Al-Shabaab waxa uu sidoo kale yiri madaxweynaha Kenya waxa uu sameynayaa wax kasta oo uu awoodo waana sii wadi doonaa dadaaladeena arrintaasi ku aadan si loo xalliyo safiirka Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo aqbalay codsigiisa ah in kiiska lagu xalliyo meel ka baxsan maxkamadda iyo in kale hase yeeshee ma jirto wax cadeena oo muujinaya hadalka safiirka xeerarka maxkamadda ICJ-da ayaa dhigaya in kiiskan aanan dib loo dhigi karin haddii aysan labada dhinac ogolaanin hase yeeshee dawladda Soomaaliya waa ay diiday inay ka jawaabto sababta dib loogu dhigay dacwadaasi oo marar badan su'aalo laga weydiiyay mas'uuliin ka tirsan dawladda sidoo kale dawladda Soomaaliya ma aysan saacin safarka safiirka Mareykanka ee Kenya oo Muqdisho ku yimid lagamana warheynin balse kaliya wareysigiisa ayaa lagu ogaaday dhibaatada ugu weyn iyo walaaca shacabka Soomaaliyeed ka haysta kiiska badda ayaa ah in inta badan aamusnaanta dawladda iyo hufnaan la'aanta dhankaasi ka imaanaysa iyadoo inta badan ila wareedyo dhanka dibadiisa xogaha laga helo markaas oo dawladuna ay arrimaha qaarkood qarinayso sida la rumaysan yahay dawladda ayaana markasta looga bartay inay aamusnaanta ku dadaasho mucaaradka warar kala duwan oo ka soo baxay waxay kiiska badda ka muujinayaan shaki weyn iyagoo sheegay dawladdu in arrinka badda aysan xoog badan gelin balse warar kale oo soo baxay ayaaba waxay sheegayeen in dawladdu ay shaqadii ka ciirisay qareenadii u doodiyay Soomaaliya balse safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub Ambassador Fiqi ayaa arrimahaasi beeniyay waxaana uu sheegay in kaliya qareenka lagu magacaabo Muna oo ah gabar Soomaaliyeed ee shaqada isaga tagtay kadib markii ay shaqo ka heshay faanka adduunka una gudbisatay codsigeeda madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa hagaag magaalada Muqdisho duleedkeedana waxaa ka dhacay qarax ay mas'uuliyiin ku dhaawacmeen faahfaahin dheeraada ayaa waxay ka soo baxaysaa qarax khasaare geystay oo ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho qarax oo ahaa miino ayaa waxaa lagu waramayaa in lala eegtay gaari nooca raaxada ah oo uu la socday mid ka tirsan mas'uuliyiinta deegaanka La Foole iyo ciidamo uu watay
al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi waxaana ay sheegtay in qaraxaasi ay la eegatay madaxa maaliyadda ee deegaanka Lafoole ninka lagu magacaabo Iimaan Maxamuud Cadow iyo askar ilaala u ahayd warka ka soo baxay al-shabaab ayaa waxaa lagu sheegay in dhaawac culus loogu geystay mas-uulkaasi askartii la socotay sidoo kalena qaarkood ay ku dhaawacmeen dhinaca kale ma jiro wax hadal oo weli ka soo baxay deegaanka ceelasha biyaha iyo kan Lafoole oo qaraxu ka dhacaba inta badan al-shabaab ayaa weeraro iyo qaraxyo ka geysta wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye halkaas oo marin muhiim u ah ciidanka dawladda iyo mas'uuliyiinta Lafoole iyo kuwa deegaanka ceelasha biyaha iyo deegaano kale oo degmada Afgooyeba hoos yimaada si kastaba ahaatee dhowr mar ayay isku dayeen ciidanka xoogga iyo kuwa nabad sugidda inay amniga wadadaasi hagaajiyaan balse ma aysan suurto gelin waa tahay dhankaas iyo Kismaayo ayaan aadeynaa iyo Axmed Madoobe ayaa waxa uu magacaabay labadiisa ku xigeen go'aankiisa ayaana waxa ay muujinaysaa inuu Kismaayo ka jiro hal kaligiis talis maamulka Jubbaland ayaana waxa la leeyahay dhowr xubnood ayaa isku koobay madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta magacaabay madaxweyne ku xigeenka koowaad iyo midka labaad ee maamulkaasi wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweyne Axmed Madoobe ayaa waxa ku xigeenka koowaad loogu magacaabay Maxamuud Si Aadan oo horay xilkaasi u soo hayay beeshiisuna ay tahay Mariixaan sidoo kale waxa ku xigeenka labaad loo magacaabay Cabduqaadir Xaaji Maxamed oo isna horay u hayay jagadaasi waana shiiqaal madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa u rajeeyay labada ku xigeen inuu Allah xilkooda u fududeeyo arrinkan ayaa ka dhigaysa inaan wax isbedel ah lagu sameeynin hoggaanka Jubbaland oo marka loo fiiriyo saddexdii mas'uul oo markii ugu horeysay maamulkaasi ugu sareysay ay mar kale dib u soo laabteen waxaa la rumaysan yahay inuu ka dhaxeeyo isfaham weyn oo dhanka siyaasadda ah iyagoo dawladda si wadajir ah uga soo horjeeda madaxweynaha iyo labadiisa ku xigeen ayaa isku aragti ka aaminsan khilaafka kala dhaxeeya dawladda federaalka ah waxaana la rumaysan yahay in dawladda Kenya garab weyn ka helayaan shacabka Kismaayo ayaa la sheegay in intooda badan dhuunta la qabto loona adeegsado ciidanka awoodda badan ee Axmed Madoobe oo Kismaayo ka sameeyay deegaano fara badan oo gobolka Gaday u badan yihiin oo maamulka Axmed Madoobe uu ka talin ayaa jira kuwaas oo xaaladoodu ay wanaagsan tahay dawladda ayaana halkaas galaagal xoogan ku leh Axmed Madoobe ayaa dhowr mar isku dayay inuu dawladda la heshiiyo balse ma aysan u suurto gelin ugu dambeyntiina saaxiibadana qiimaha badan oo barnaamijkeena faaqidaada wararka waxaan ku soo afmeeraynaa Ahlu Sunna ayaa ku dhawaaqday guddiga farsamo kaas oo loogu talagalay dhismaha maamulka Galmudug waxaana la aaminsan yahay inuu ku jabinaysay kii ay dhawaan soo magacawday wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa magacaabay guddiga doorashooyinka iyo khilaafaadka dawlad goboleedka Galmudug kadib war qoraal ah oo xafiiskiisa maanta ka soo baxay guddigan ayaa ka kooban 11 xubnood waxaana ay ka shaqayn doonaan wajiga labaad ee dhismaha Galmudug iyo doorashada maamulkaasi arrinkan ayaa uga sii daraysa khilaafka u dhaxeeya dawladda oo markii hore ku dhawaaqday guddiga farsamada ee maamulka Galmudug oo ka koobnaa 13 xubnood balse Ahlu Sunna wal Jamaaca ayaa guddigaasi ka hor timid maadaama xitaa hal xubin aysan ku lahayn guddigan uu soo saaray madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa waxaa loo qeybiyay hanaanka beelaha deegaanka Galmudug kuwaas oo ka kooban 11 beelood min hal xubin ayaana loo siiyay balse dawladda ayaa guddigeedu waxa uu ka koobnaa 13 xubnood laba xubnood oo dheeraad ayaa ku jirtay mid waa sharafeed midka kalena beel kale ayaa loogu daray sidoo kale arintani ayaa ku soo aadaysa iyadoo xalay wasiirka arrimaha gudaha iyo hoggaanka Ahlu Sunna ay kula natiijo la'aan ku soo dhamaaday ku yeesheen magaalada Dhuusamareeb ee gobol Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya waxaa la rumaysan yahay in dawladdu Ahlu Sunna ay gorgortan xoogan kula jirto balse awoodda amniga ay dawladdu gacanta ku dhigtay sida muuqata qaybo kamid ah awoodda ay Ahlu Sunna weli gacanta ku haysa iyadoo aan la dhayalsan karin guud ahaan saaxiibadana qiimaha badan oo barnaamijkeena faaqidaada wararka intaas ayaan ku soo afmeeraynaa fadlan daawada haddii aad janaalkeena ku cusubtahay subscribe inoo saar gambalaalkana taabo si markasta aad u noqoto qofka ugu horeeya wararkeena iyo warbixinadeena ay soo gaaraan muuqaalkeena la sii wadaag saaxiibadada kale si ay u sii daawadaan nabadgelyo ammaano alla daawada meel kasta oo dunida ka joogto guud ahaan saaxiibadana qiimaha badan oo barnaamijkeena faaqidaada wararka intaas ayaan ku soo afmeeraynaa fadlan daawada haddii aad janaalkeena ku cusubtahay subscribe inoo saar gambalaalkana taabo si markasta aad u noqoto qofka ugu horeeya wararkeena iyo warbixinadeena ay soo gaaraan muuqaalkeena la sii wadaag saaxiibadada kale si ay u sii daawadaan nabadgelyo ammaano alla daawada meel kasta oo dunida ka joogto